markale kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan shacabkana daawanayo sidaan idinku sheegnay dhab tv saddexdan cisho waxaan rabnaa inaan diiradda saarno xaaladda deegaanka soomaalida kusoo kordhay khaasatan shidaalka waxaa barnaamijka marti noogu ah mar walbana dhab tv contribution ku sameeya waa faysal roble faysal kusoo dhawow saaxib waxaan si fiicanahay waa dhowahay sidaad la socoto travel baan ku jiraa oo dalka waa gurigayga waa ka maqanahay laakiin thank you waad ku mahadsantahaynaa waqtina siisay bal arrintan aan ka hadlayno aan gudagalno faysal waxaan rabaa wax yar horta bal prime ministerka twitterkiisa wuxuu ku post gareeyey in aan tusno kod shacabkana daawanaya kadibna waxaan doonaynaa inaan kaa faa'iidaysano khibradaada ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ፣ ክቡር የፓርቲያችን ምክትል ፕሬዝዳንት አደን ፋራህ፣ የክልላችን ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ ሙስጠፌ ዑመር፣ ክቡር ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ፣ ውድ ወንድሜ faysal kabur buu yiraahday dhammaan dadkii uu ku soo dhaweeyay marka ugu horeysa faysal anaguna su'aal ku weydiinin bal dareenkaaga nala wadaag wal horta runtii videoga aad tustay dadkan aad la wadaagtay anigu waxaan soo joogay anigoo inaan yara waqtiga xilli silaase mangistu waqtigiisii iyo waqtiyadan haatan dadkeenu way heesayaan madaxda boqorada u heesayaan dictatorska u heesayaan waa very unfortunate ereyadooda waxaan ka dhidhinsanayay barwaaqa noo soo socota mid kastoo yimaadana saasay horta ugu heesaan it's a sign of colonial gumaysi waxa lagu gartaa dadka la guumaysta ayaa u heesa ka guumaysta marka horta waa ayaan daro waa dad keni adag waa dad adkaysi adag laakiin waad ka naxaysaa marka had iyo jeer loo soo safo qof aad og tahay in aanu danahooga ka shaqaynayn qofka yidhaahda abii ninkii noogu fiicnaa oo waa khaldan yahay waxa keliya in ilaa hadda ku badbaadnay waxa weeye dadkeenu waa isdhiibeen racidnimadii bay ogolaadeen racidnimada ay ogolaadeen baanay xabadi ka dhicin laakiin beri horaan qor axmed yaasiino ninka tigre saa u galay maxaara saa u galay oromo saa u gelaya innagana inooga rayn maayo marka midda keliyaata ee hadda aynu xabad dhulkeena ayna ka dhacayn waa isdhiibkaad isdhiibtay hase ahaatee dee mawduuca aynu ka hadlayno waa mawduuc runtii xasaasi ah oo aniga dagaalka la mid ah waana ka sheekayn doonaa
marka dareen ahaantaada ayaan rabaa maanta si personally baan rabaa inaan su-aasha ku weydiiyo si mataqaanaa academiga waan geli doonaa bal aniga ahaantii waa qaracan baan ku jiray bal adiga dareenkaaga maanta siduu yahay axmed yaasin anigu waxaan ahay planner sidaad ku warqabtona 4 sano waxaan hoggaanka hayay magaalada Los Angeles qaybteeda cimilada iyo environmentiga saaka markaan arrimahan arkay 3 cadow oo ummadeenu leedahay baa ii soo baxday 3 cadow waan sheegi karaa laakiin post aan saaka geliyay 80 sano aynu dul kulaalaynay khayraadka innaba may ahayn inaanay dadkeenu ka faa'iideysan anigu waa ogolahay in dadkeena looga faa'iideeyo khayraadka ilaahay siiyay laakiin sidee looga faa'iideynayaa maxay ku leeyihiin maxaa uga soo galaya horta arrimahaas oo dhan in laga xajoodo weeye marka taariikhda aan saaka qoray Axmed Yaasiino waxaan doonayaa inaan diiradda saaro gumaysiga markay gacanta u galayeen iyo khayraadka dhulka ku jira way wada socdeen waxaan sheegay in Eisenhower Roosevelt ninkii la oranayay ay saaxiib ahaayeen ninkii kambanigii Sinclair oo saliidda ka qodayay oo Allahu naxariistay ninkii adeerka ahaa ee Soomaaliya wasiirka ka noqday uu ka shaqeeyayba runtii Xuseen Qaasim exactly ma iyo nin kale oo oranayay inay dhacso oo isna reejiga ahaa oo meelaha ka bilaabeen kariirka marka arintani muddo dheer bay soo socotay markaan leeyahay gacanta u galan waxa weeye markii ugu horeysay Ethiopia si buuxda ay u dareentay in ay khayraadka ka faa'iideysanayso kaliya waxaan isweydiinayaa ummadeennan maxaa uga faa'iidaa marka haddii aan saddexda arrimood ay ugu soo dhacay saaka markii arrimahan aan arkay anoo socdaal ku jira kow waxa weeye dadkeenu waxay la tacaalayaan isbeddelka cimilada iyo dhibta uu ku keenayo dadkeenu waxay u badan yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley services badanna male marka waxa ugu weyn oo ku dhacaya waa isbeddelka cimilada wuxuu ku keenayo geelo ka dhimanaya beeraha ba'aya iyo waxyaabaha la mid taas waa kow talabaad saan sheegay mawduucyada waan ka soo shaqeeyay dadka la yaso and political bargain power lahayn ama baayactan siyaasadeed aan ku lahayn dawladaha xoogga leh waxa loo weeciyaa warshadaha qashinka dirty industries batroolka qodidiisu waa cadowga labaad ee dirty industry ama qashinka keena iyo labaad oo ah not in my backyard bay dhahan ku soco exactly waa hadhow markay dadku ka dagaalamayaan talabaadna waxa weeye warshadaha ugu xuneed ciyaalkaaga iyo ummadaada ilaahay uga bari kartaa in agtooda aan laga dhisin waxa kow ka ah tan fertilizerka ama bacriminta horta saddexda cadow baa hadda maanta dadkeena kulaalaya marka sheekadu dadkayga dee waxaan og innaba ma diidanin in ummadeenu khayraadka ay leedahay ka faa'iideysato laakiin beri horena waa ka qoray maqaal Axmed Yaasiin oo muddo hadda 5 sano laga joogo wax alla wax environmental assessment ama baaris lagu sameeyay dabiiciga iyo aaga ummadaas waxay ku keenayaan dhibaatooyinku ma jirto waxaan oo kale waxa lagu sameeyaa huge environmental impact oo 2 level ah ama 3 level ba mid hore waa inay federal ku samaysaa environmental impact waxa uga imanaya ummadda midda labaad waa inay regionku sameeyaa dawlad deegaanka Soomaalidu midda saddexaad waa in degmada ku dhow ee waxaan aad u og ay samaysaa oo independent ah intoo dhan ma hayno marka ummadeeni saddexda cadow cimilada isbedelaysa khayraadka laga qodayo qashinka uu keenayo iyo kansarka iyo cudurrada waad ogtahay maqaalada laga qoray cudurradu intay leekaan karaan kansarka iyo waxaas oo dhan iyo tan bacriminta oo ah warshadaha ugu xun oo waxyaabo badan ka iman karaan biyahan wabigan ilaahay siiyo ummadda oo la wasakhayn doono biyaha hoosta ku jira ee taab watarka oo isaga qudiisa la wasakhayn doono marka runtii ummadda Soomaaliyeed waxay diidan tahay ma aha in laga faa'iideysto oo ummadda khayraadkeeda wuxuuna ay ka hesho waxaana laga heshiin doono madaxweyne Mustafa laftiisa ayaa ka hadlay 2 sano ka hor baan u maleynayaa isagoo le ma hubno waxaanu ka helaynaa laakiin waa ku dagaalamaynaa waxa naga soo galaya iyo waxaan xaq u leenahay waxaasoo dhan ayay sheekadaydu daba socotaa Axmed Yaasiin walwalkayga iyo kayga ma waxaan rabaa adaba dhinaca siyaasadda iyo waxay sameeyeen waan geli doonaa qaybta ugu dambaysan ka dhigi doonaa hadda environmental assessment-ga ayaan rabaa inaan ka hadalno
laba warshadood ayaa hadda hal warshad baa socota oo already functional ah ayay leeyihiin waad u jeedaa booyadihii gaaska qaadayay oo meesha la keenay waad u jeedaa prime ministerka wuxuu dhahayay sida uu rabo inuu u isticmaalo gaaska deegaanka local ee u isticmaalaan laakiin haddeerto warshadan fertilizerka ah ee ninka nigerianka uu dhisayo waxaa laga dhisayaa meel biyo webi ah ku dhow effectiga environmental ee u lahaan karto iyada oona laga taxadarin waan ognahay naja mataqaana delta gobolka delta waxaa ka socda in nigeria in bowiyada dhan aan la isticmaali karaynin so environmental impactiga uu lahaanayo webiga biyaha agtiisa warshada laga dhisayo iyada oo aanan assessment la samaynin maxay tahay إلا ما صوماليا أيون جارية بيها. وتعرف ياسين جبت الناس تاع حوي شيء قال لي هذا environmental assessment. أما ذلك قارك هذا يقال environmental impact report. وحكت الربو إذا هذا أفكار كل فتي ولا سوء وريي وماشي كتير. الميلاد هذا السيد هاي أجسوية هاي وبيجسوية هاي cabirka webiga inta saliid ama qashin ku jirta heerkay tahay iyo marka waxaan la dhiso heerka ay gaarayso iyo wixii lagaga tabshan lahaa ama loo taakuleyn lahaa the most important thing ay environmental assessment ku siinay waxa weeye daaqad bay ku furaysaa ku tusta dibta ka imanaysa waxa then waxaad u gudbaysaa waxa la yiraahdo mitigation programs dibtaas hadayba jirtaba hadiiba dowlad deegaanku ka maarmi waaye in bacriminta laga dhiso goday maxaa lagu talagelayaa in mitigation ama kahortag iyo daweyn lagu sameeyo taasa ayana laba waji ah daweyntaas ayaa laba waji ah midna waa social midna waa technical technicalku waxa weeye wax alla wixii laga hortagi lahaa wasakhayntaas laga filayo in bacrimintu ay ku keenayso webiga carrada iyo biyaha iyo dadka waxa neefsanaya qaaca ka baxa sifaynta bacriminta chemistry alaabaha lagu sifeeyo waa qaacyada ugu xun oo warshad ka baxa oo nuclear-ka ku xiga the next to nuclear waa fertilizerska qashinkooda iyo waxay daadineen waxaas dhan taasoo technical-ka dad chemistry ah engineer ah wax sifeey yaqaana baa fikrad soo jeedinaya sidii looga hortagi lahaa midda kalena waa socialka waa tan labadaba tan petrolka ee khayraadka laga qodayo gaaska iyo tan bacrimintaba maxaa dadkan dibtu ku dhacday loogu faa'iideynaya iminka ninka dirraba jooga maanta ee Soomaaliga iyo ninka goday duleedkeeda kulaalaya ama holhol ninka fadhiya waxyeeladu isku si uma gaarayso public benefit package wax la yiraahdo la sameeyaa oo la qiimeynayo oo qiimeynta milyoonaad lagu bedelayo milyoonaadkaas ayaa ummadan dibta ka soo gaaraysa waa marka laga maarmi waayo ee xataa la og yahay inay bukoonayaan xataa la og yahay in geelu ka dhamaanayaan xataa la og yahay in caws ka dhamaanayo waxa la yiraahdaa annaga u baahan hadaan dawlad nahay oo public goalka ayaa ka weyn oo kama maarmayno laakiin intaasoo bilyan oo bir ayaanu dadka shilaabo degan ugu tabarucnay si ay uga bogsadaan ama xataa meesha uga guuraan waad ogtahay nidaamka laga dhisayo bishuftu sida compensationka loogu sameeyay oromoda aagaa degan oo lacag xooggan la siiyey innaga laba cali kama wada hadlin marka runtii dadkeenu so waxaa leedahay corporate social responsibility lama fulfill garaynin environment sidaan kuu sheegay environmental impactigu dadku environmental unbay maqlaane waxa ka soo baxa public policy programs corporate-kuna mas-uul ka yahay dowladuna mas-uul ka tahay dowlad deegaanka iyo districtguna ay mas'uul ka yihiin sida u implement gareynayaan marka runtii waxa jirta responsibility-ga tahay arintan abiyi madaxweyne mustafa shiinaha nigeria intoo dhan xeelada lagu dejiyo environmental impact report waxay qeexdaa tilmaamtaa qof kastoo responsible meesha uu ka soo gelayo iyo waajibka lagu leeyahay dowlad deegaanka madaxdeeda waa gaar waajibka lagu leeyahay dawladda federaalka iyo ilaalinta iyo waxaan ka filanayno waa gaar haddii loo dhiibo waxaan dad yaqaana intaba waa la hirgelin karaa waxa taa looga sii gudbaa axmed yaasiin fulinta mid kasta aynu hadda sheegnay
oo afartaas ah ayana fulinta qayb bay ku leeyihiin sidii barnaamijyada loo fulin lahaa marka dadkeena indhala-aanta anigu ma diidani in khayraadkan dadkeena loo qodo inay ka faa'iidaystaan Axmed Yaasiin oo heer baynu gaarnay haddaynu Soomaali nahay inaynu gumaysiga Itoobiya ogolaano no matter what haddii aanay wax kale ilaahay keenin anigu Faysal ahaan waxaan u jeedaa siyaasadda Soomaaliya aagga Soomaaliya siyaasadaha ka taagan dadka deegaankaas muddo dheer bay halgamayeen hadda waxaad moodaa inay isdiibeen laakiin isdiibkii baa haddana wuxuu u keenayaa liid xaddaaf dad liita oo xaddaaf so aan haddaba aan galaha haddaba dhinaca aan siyaasadda galna maadaama aad dhinacaas aaday waxaa warshadan shalay lama furin oo lama dhagax dhigin shalay aan Ethiopia waxaan ku naqaanay mar walba markii ay rabto inay wax samayso hadday leedahay jid yar baan sameynaynaa madaxweyne Mustafa intuu soo qaato wax yar oo shamita ah iyo dhagax baa ayaa la dhigayay videona la iska duubay tan waxaa dadkii ay leeyihiin waa lagu soo wada anfariiday oo waa la yaabay inkastoo aniga aan 3 bilood ka hor aan sheegayay in arrintan ay socoto so how sida u assess garayn kartaa arrintan comparing to history ay maamulkan lahaayeen meel walba dhagax dhigayaan iyo jid walba dhisayaan jidka iyagoo dhaqaya xitaa ay soo sawirayay in maanta warshadan oo saa u taagan una aragno way aniga oo meel fog joogo horta way ugu adag tahay in aan arrintaasi miisaaman uga jawaabo laakiin waxaan filayaa madaxdu way ogaayeen madaxda in limited waxyaabaha noocan qaar secrets baa laga dhigaa laakiin qaarna waa lagala tashadaa isla madaxda waxa laga yaabaa cabinet-ka oo dhani ee dowlad deegaanka Soomaalida inay wada ogeyn laakiin key people waxa la yiraahdo waa korka waa laga wada ogaa ilaa 5 sano ugu dambeysay ilaa waqtigii Cabdi Maxamed arrimaha ka soo sheekeynayay laakiin sidan xawaarahan inta dambe iyo in ay sida u hirgashay waxaan isleeyahay dad kooban baa ogaa waxa aynu filaynay inaynu aragno baybab la dhisayo marka saliidda la hubiyo ama gaaska la hubiyo hadda waxaanu ku soo baraarugnay in track by the way the other environmental impact oo dadkeena baabi'inaysa waa 1,000 kilometer ee hoolaal ama shilaabo ilaa adsaabo u dhaxeeya ee shidaalka lagu qaaday inta gaari ee maraysa waxa ay umadeena ku keenayaan taasina waa dhibaato kale wuxuu dhan waa laga hurday dadku waxay filayeen in ay arkayaan warshadii oo la furay jigjigo xaflada lagu qabtay iyadoo fantasiya lagu qabtay horta ku soo boodi ku noqotay laakiin taasi waa iska runtii wax weyn ma waxa weyn Axmed Yaasiin waxa ma hadda noqonaysa waxa weeye negative impact-ga maxaynu ku leenahay Soomaali ahaan ilaa imika lama hubo madaxdu ma hubto waxaan arkay dollar oo la 30% baan 30% ku leenahay I don't think that's even right wax qoran oo Mustafa uu sheegay doorkii hore wax cad oo la leeyahay dawlad deegaanka inta leh districtiga laga qodaya inta leh horta wali lama hayo taas waa koow even hatta hadii laga heshiyo sidaad sheegtay Nigeria arlooyin baa ku baaba'ay saliidaha meelaha looga qodayo waliba waxa irony ah oo waxay gaaladu yiraahdaan Orwellian situation in Nigeria uu dilaal ka yahay arrimahan oo dadayooga runtii la oran karo saliidaha dalkooda ayay ku ciyaareen waad ogtahay dad badan oo caana ku dilay xataa nin Nobel Prize-ka u sharaxnaa xagga luqadaha iyo qoraalada oo Sarweeyo loo oranayay baa lagu dilay markuu dadkiisa isu taagay sidan hadda aynu uga hadlayno waxaan billions of dollars bay dawladda federal ku aragtaa anybody ka hor yimaada qoortay jaraysa okay so haddaba aan arrinta gaaska waxaan ku leenahay iyo waxaanan ku lahayn deegaankeenu waxay mar walba dhahayeen miiska ayaan fadhinaa preferiga manihin centerkan ku jirnaa siyaasadda Ethiopia hadda waxay u soo guuraysaa deegaanka Soomaalida oday dhaqameedkeenii waad u jeeday iyagoo safan kuwa kaleeto oo adsaaba jooga waxay dhacayeen oo mega project deegaanka la keenay waa wax aad u qurux badan waxay dowlad deegaan ku doonaysaa jidad baa nolol dhisaya wax isla baarlamaanka deegaanka annagu maanu arag inay marna iyagoo ka doodaya responsibility-ga gaaska ee deegaankeena ah ma dowladda federaalka ayaa iska leh oo fara lama gelin karo arrintaasna common ma ka tahay adduunka Mareykanka iyo Canada waan ognahay waxaa province-ka iyo state-ka ayaa iska leh oo gaaska iyo wax walba shaqo ku leh shaqaalihiisa wax walba
wax cad oo la arkay ma jirtaa haddii aynan jirin dowlad deegaanku responsibilitygeeda may iska qaaday iyadu oo wax responsibility ma saarna miya horta waxna waa wax iska retoriga waxna waa wax reality Ethiopia mees baa la fadhiyay it's an autocratic system of government waa dowlad kaliya talis ah wuxuu soo dhibaatooyin waa dal kaliya tay 1 milyan oo qof ku dhinteen dagaal sokeeye inta taariikhda hadda la ogyahay dagaalada ka socda waa ogtahay marka sheekadan dadka caadigeena kolba qofkii kursiga fadhiya u tumo ilaa maalintii ay Soomaalidu soo noqotay ay dowlad deegaan qayb ka noqotay kolba nin kursiga fadhiya durbaanka uu tumaano taa wax weyn u qaadan maayo it's the nature of African politicians waa dabiicadda dadweynaha Afrikaanka iska leeyihiin kolba ninkii kursiga fadhiya uu kan ka sareeyo nin la soo doortay baad maxay daba fadhidaadii oo kale marka taasna waxaas wax big deal maaha and I think Ethiopia sharci bay leedahay Mareykanka iyo Ethiopia inay kala duwan yihiin baan u maleynayaa Mareykanka dhul baa jira dawladdu leedahay oo buuraha si waxa mineralkii laga helo waxa le markaa dawladda leh dhul goboladu leeyihiin baa jiro khayraadkii laga helo kaasaale xataa gurigaaga hadaad ka hesho petrol Mareykanka magaaladeedo kale qofka jagada leh baa iska leh petrolka waxaad arkaysaa meelaha Bakersfield iyo meelaha la yiraahdo marka aad tagto xaafada ay ka qodan yihiin ceel riib oo soo saaray marka taas waa capitalism ko sidiisa inaga waxaan u maleynayaa xagga Ethiopia sharciga dhulkoo dhan dawladda federaalka ah khayraadkoo dhan dawladda federaalka ah laakiin nidaam ay kula qaybsato ayaa qoran dawlad deegaanada marka khayraad kale I don't think in taasuna ka cali baan u maleynayaa berigii Mustafa waxa dawlad deegaanada kale sida loogu qaybiyo inaga si ka duwan bay ka dareemeen baan isleeyahay madaxdeena in qodobka la akhriyo in wixii ay hadii sharciga hadii ay dadka dawlad deegaanka xukuma ay iyagu ku tashadeen in dad Ethiopian yihiin oo anagu kale Faisal kama qaadi karata xaalada ayaa keenay in maanta calankii Ethiopia loo heeso xataa hadii ay taatahay qoliyaha le waxaan fadhinaa miiska waxa ku haboon in ay dadka ummadda Soomaaliyeed la qaybsadaan inta ay ku leeyihiin federal orta sharciyada nooc iska jira khayraadka marka la qodayo sida ka Soomaaliya ku aragtay wax cost recovery la yiraahdo sanadada hore company-ga qodaya waxyaabo ayaa lagu heshiiyaa inta uu qaadanayo inta ka soo hadha haday 30% tahay for example inta 70 qaato meelahaas ay u dhowdahay malaynaya ku Ethiopia iyo Shiinaha ka soo haday hore u leeyahay 30 ka maxaan ku leenahay noqonaysa dawlad deegaan Soomaaliya ah waliba marka taas ma 50-50 bay u qaadanayaan haday 50-50 u qaadanayaan waa la qaadan karaa sababtoo federaalkiina way subsidize kareynayaan way maamulayaan goboladii kale khayraadka wax ka siinayaan laakiin hadii dawlad deegaanka 30 ka soo haray 30 ka 50 ay qaataan 50 kalena federaalku ay qaadatay meelaha gelshato waa that's fair waa wax formula la isla og yahay oo ummadda Soomaaliyeed intuu madaxweyne Mustafa Sortaago Said Abdullah Hassan Hall ama qariyaan doodaan howlkiisa uu si confident u sheegi karo intaasaynu leenahay markaana lagu kala tago laakiin taa Axmed Yaasiin waxa ka weyn dadkan waxa la rabaa adiga iyo aniga haruuraha ka dambeynaya generations baa ka dambeeyay this environmental issues are serious waxa maanta dhaca 100 sano dabadeed bay cancerkoodu soo baxaa 100 sano dabadeed ayaa dad uryaamiin dad didig oo lab isku bedeli kara waxyaabo aan la arag bay environmental change u keenan gaar ahaan kuwan chemicalska ka yimaada biyahan dadkeenu inta badan waxay ku nool sida ka warqabto biyo la qodo weey biyaha la qodaa waa tab waxay leeyihiin meelaha sal ay fariistaan salkaas ayay suntan ku dhacaysaa haddaan la hagaajin markay suntaas ku dhacdo biyahan aad cabayso qudheedu carcinogenic bay noqonayaan dadkeenu inta badan biyo la qodo marka this is a very hadda Mareykanka haddaan ku sheego meelo barigii second world war ku dhacay lagu kaydin jiray qumaca markii laga raray iyadoo qumicii la raray buskii yaray ay reebeen ba cancerkiisa laga sheekeeyaa buskii yaray qumacaan la qarxin hadda waxaad ka hadlaysaa bacrimin weyn oo biyihii goday dultaal oo dadkeenii leeyahay u sacabtuma iyadoo la qaybsan environmental impact reporting is the only thing wali maadan taaban xitaa Soomaaliya impactiga ay u lahaanayso biyahaasayto oo so it's not only good dama Soomaaliya intaadan gaarin ba
inta uu goday iyo ilaa xadka feerfeer dhex marayo ayaaba lagu baaba'ayba by the time uu Soomaaliya gaadho dee waa wixii waaban ognahayba marka meesha originkan ka صح waan gartay ilaa shabeello dhan buu waxyeeli karaa yes waan gartay so marka waxa laba waxba environmentalka ilaa hadda lagama hadlayo deegaanku ilaa hadda kamena hadal waana codsan karaan Axmed Yaasiin waxyaabaha leedahay miiskay fadhiyaan you can be part of PP ma fahamtay dawladdii way ku jiraan miiska marka la fadhiisto waa inaad issue la tagtaa miiska kursi ma tiid maran waa inaad tiraahdaa haddaan dawlad deegaanka nahay we support in dalka Ethiopia uu ka qabtirmo baadrool laga soo iibsanaya carabta that's fine laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano maxaa ka imanaya maxaase lagu daweynaya it's simple so oday dhaqameedku soo xaq uma laha inay ogaadaan dadkii meesha degan so dowlad deegaanku ma aha inay press conference iyo inay samayso arrinta ka hadlo baarlamaanku Soomaaliya inay arrinta ka doodaan de maxay ka doodeen dadka iyagii advocacy-ga u sameynayay baaba la diiday inay afka furaan annagoo xornimada haysano adduunka meesha ugu dambaysa joogna baa la rabaa in lagu yidhaahdo afka talo qofkii miskiinka ahaa ee haddii la doono garaamada laga jarayo haddii la doono kililka waxa jira wax la yidhaahdo corporal punishment Axmed Yaasiin reerkoodoo dhan baa la ganaaxaya haddii la doono you don't understand that meeshan dictatoriyad aynaan arag baa ka jirta corporal punishment waa meelaha keliyata ay ka jirto waa meeshan oo haddii qof uu wax sameeyo reerkooda iyo tribekiisa clankiisa haddii la doono farta lagu gudo marka oday dhaqameed miskiina oo la yidhi u sacabtun abi taasuu dooranaya xaguu ka hadli lahaa we have to understand dadkeenu cadaadiska ay ku jiraan Axmed Yaasiin dadkani dad xor ah oo runtii waa dad codkar ah waa dad runtii wax sheegan kari lahaa laakiin they are not in a free environment waxaa la ii sheegayay India mataqaanaa kansarka ugu badan dadka lagu u tagaya inay yihiin dadka deegaanka Soomaalida degan oo tira aad u badan marka warbixinna waan ka diyaarin doonaa kaas qorsheena January way ku jirtaa sideedana India waa dadka adduunka meelaha ugu kansarka badan waxa la yiraahdaa cancer alley dhakhaatiirta ay dadku inta tareenka u raacaan lagu soo daweeyo cancer alley macnaheedu suqduudkii kansarka waxa ku keenay 1970s-kii markii India tiri cuntadan isku filaanayna baa fertilizer garka loo galiyay beeri bacrimin garka loo galiyay beeri after 50 years 70-kii maxaa laga joogaa after 40 plus years baa waxa the rate of cancer India maanta waliba meelihii laga hirgeliyay fooqal caqli weeye marka waxaanaynu ka hadlaynaa ma aha qof baa hebel ka soo horjeeday iyo hebel baa waxaa diidanayo war waxa weeye haddii xataa la qodayo xataa haddii warshadaha first of all I don't understand Faisal ahaan runtii waxa loola soo doontay bacriminta fertilizerka Ethiopia goday fiiri fertilizerka 99% waxa isticmaali doona beeralayda Ethiopia beeralaydeena waa in yar percentage ahaan marka meel la dhigo bacriminta laga qaaday goday ee Gondar la geynayo bacriminta laga qaaday goday ee Walaga Naqamta Dambidoole la geynayo mayaan laga dhisi kareen Dambidoole Naqamta agteeda ma iyagu waxay ku doodayaan iyagu maadaama gaaska laftirkiisa laga keenayo wala caada gaaska waa aha kan ma aha kan dabiiciga eerka ama ay ka kaleeto naaftada ah oo iyadana deegaankeena laga soo saarayo ayaa qayb ka mid ah ayaa lagu sifeynaya oo daas waxay ku doodayaan laakiin booyadii waxay haystaan koostiga fiiri inta laga qaado bacriminta goday Gondar la geynay intaasoo boqol oo truck every week sidoo kale Naqamta Ethiopia oo dhan looga taaqudeedu environmentalka ay ku keenayso dawlad deegaanka iyana dibteeda haba la qaybsadaa soranaysa dawlad deegaanku hataa haddii loo qoondeeyo waxa jira wax la yiraahdo core regions oo warshadaha waa la qaybiyaa innaga nasiib darro waxay nagu soo hagaagay ama aynu jeclaan ama aynaan jeclaanin I know this thing very well waxay nagu soo hagaagay dirty factories dirty industry ayaa dadka nagu soo hagaagay ama tabatroolka ha noqoto ama tabacrimin meel looga baxsan karo arrintaas ma jirto Axmed Yaasiin kaliya waxa weeye war maxaa laga hortagayaa okay maxaa laga hortagayaa aan galno so labadeena waa naqana wax advocacy yahay waxaan rabnaa hadda waa wake up call baan sameynaa wax waa taariikheynayna maanta
deegaanka Soomaalida gaaskii waa laga soo saarayaa bay yidhahdeen warshadiina waa laga dhisayaa waxaa jirtay jabhadda on left ahayd guddoomiyaha mar walba uu kasoo horjeesanayay iyo on left leadershipkooda hadalkii wuu dhammaaday buu yidhaahday Ethiopia way iska indhatirtay heshiiskii on left iyo mataqaanaa dowladda federaalka ahayd oo kala qaybin bay sameeyeen maxaa nala gudboon haddaan Soomaali nahay especially waxgaradka Soomaalida oo idin waa responsibility na wada saaran marka ku soo wallahi way adag tahay anu talooyinkan Soomaalida siiyo waa ka yar gaabsaday Axmed Yaasiin hadda because ummadani waqti xasaasi oo adag bay maraysaa laakiin waa in laftu waa xisbi jira oo hadda isaga qudhiis waqti xasaasi ah maraya waan uga fadhinaa waxay ku tashadaan arrintan way dhaqaaqday bari hore 5 sano 6 sano laga soo hadlayay it's gone now hadda maxaa lagu sameyn karaa taas waa in lafta iyaga u deynayaan laakiin dawladda deegaanka taladan siin lahaa waxa weeye taariikhda qormaysa Afrika waxaan ka soo baxay iyo khayraadka leeyahay dadkeena ku tijaaraya waxba kuma tijaarayaan 4-5 qof oo petty bourgeoisie class ah baa horta mushaarku badanaya ama jeebkoodu cuslaanaya waxaasna bari iska dhamaada taariikh badan baynu u soo joognay dad lacag urursaday oo maanta dibadaha jooga bal ummadan ha loogu taliyo sidii ay kaga samata bixi lahayd waxyeelada soo gaaraysa aniga Axmed Yaasiin background-ku ma xagaaga I think waa xagaaga so 1 minute so waxaan ka hadlaynaa waxa weeye taariikhda aan u dhigmaysa dowlad deegaanka markii aan fiirino oon aasas garaynay aan si walba u eegnay deegaankeenu diyaar uma ahayn waqtigan xaadirka in gaas laga qado laba sababo aad woodeen kow in environmental assessment saxa aan la samaynin waxaan had ka hadlaynay doodeedu waxay noqonaysaa deegaankeenu diyaar uma ahayn in laga qodo gaas waqtigan xaadirka ah iyadoo aan laba qodob ku base gareynayo adigana maqaan ku siinaya kow waxaan idhaahday waxa weeye environmental assessment saxa lama samayn labo waan ognahay 4 sano la soo dhaafay in ciyaalkeena high schoolka ay ku dhacayeen jaamacadii aynan galaynin oo iyadoo 500,000 oo arday ka badan ay eligible u tahay high school inay gasho ayaa 20,000 intay gasho Faisal ayaa 20,000 boqolkiiba boqol qof ay ka baas gareynayeen less than 3% oo dadkeeni looma diyaarininba hadda dad waxay ku doodayaan mashaariic baan helaynaa dad qoomiyad noocaasa diyaar ma u tahay inay la jaan qaado yaana iman doono oo ka shaqeynaya meesha yaa weldingkii sameynaya yaa sameynaya mataqaanaa engineering yaa ahaanaya architectureki yaa jidadkii dhisaya dadkaas markay yimaadaanse may ka tagayaan because waan ognahay annagoo Albertan joognaa oo kaleeto kanadiyaankii caddaanka ah ee meelaha gaas ka shaqaysanayay ayaa dhulkii oo dhan la wareegay so population wise change uu keeni karto arrintan maxay tahay horta inaanay dadku u diyaarsanayn waa ognahay oo dee intaadan waxaan culus gaadhinba maalmeed waxaan arkay oday ka deyrinaya raasami ahayd xataa bankigii Soomaalidu kama shaqeeya airportkii jigjiga wakii lahaa hal Soomaali kama shaqeeyo odaygu markuu sheegay markaad waxaan culus weliba national security-ga Ethiopia qayb ka ana dee horta weligeed taariikhda inta soo jirtay Soomaali looma ogolaan haddii loo ogolaanayo haddaan ogaan doonaa marka laga yimaado dhibaatooyin ka imanaya maxaa ummadda Soomaaliyeed uga soo kordhaya waa haddii wixii hore aynu ku qiimayno iyo si Ethiopia ahaan jirtay wax badan kama filanayno saa kuwa ka dib yar baan ku yidhi bankiga iyo airportka iyo baynaan shuqul ku lahayn electric power generator meelaha laga shaqeeyo wuxuu dhan post office-ka iyo xodan waa mahadada ay nagu reebeen nidaamyadii soo jiray iyo kan jira haddaba laakiin khatarta yeelanaysa waxa weeye hadduu deegaanku kobco uu major factories yeesho ama aynu jeclaan ama aynaan jeclaanayne dad aan Soomaali ahayn buu soo jiidanaya demographic change baa dhacay sida haddaba jigjiga ku dhacayo isbedel shacabka ku yimaada
dirdhabe beri waxay ahayd soomaalidii oromooda isleekaayeen annaga soo gaadhnoo xasuusanayna maantana waxii dhacay ha dhacee waxa lagu xisaabtamaya Soomaali 13% 14% miya something like that jigjiga waxaan xasuustaa iyadoo inta yare duurata xabashada yare askarta mooyee horta dad kaleba aanay jirin oromo ma jirin sidabuub ma jirin it was just yesterday Ahmed Yaasiin hadda marka waxaan laga dhiso dadka Soomaaliya ku tala galaan oo ha u qaybsamaan kuwa u advocate gareynayo waan rabnaa in dhulka la soo dego oo kuwa dawladda ku jira saasay yiraahdaan iyo dad ka tiraanyaysan horta labadaas u qaybsamayaan laakiin lazman siyaasadan hadda lagu joogo ee hadda dalku ku jiro qasab maanta jigjiga 25% kama yaraan u malaynaya sida dadku sheegeen estimate 25 waliba conscious ah oo reer magaala oo sal ku leh magaalada small businesses clerks ma ogtahay civic server hay'adaha u shaqeeya waa dad dhaqan as opposed dadkeenu ay yihiin dad ballaaran oo qaarkood aanay la soconba siyaasadda dalka marka 25% gaasi haddii xataa la keeno democratic system oo one person one vote la siiyo they will have say mana diidi kartid because siyaasaddii baad ogolaatay adigaa ogolaaday siyaasaddaas adigaa ogolaaday in marar ay noqoto dhul oromo oo 5 kilometer 7 kilometer jigjiga u jirta this have consequences steebada aad qaado iyo waxa aad Soomaali ahaan ogolaato waxay leeyihiin saameyn aad la noolaanayso yaa diidan oo la noolaan doono diidan in dadka la noolaado dadku ay isweydiiyaan hadday dadkan u qabaan Faysal iyo baa diidan in dadka ay la noolaadaan anagu ma diidanin Mustafana ma diidan haddana waa in the heart of mataqaana deegaanka Soomaalida goday ayaa noqon doonta centerkii Ethiopia oo demographic change-ga dhaca aanan la malaysan karaynin ka go'aanka maanta gaaraya waxyaabo isaga danihiisa awgeed uga jeedsanaya laakiin ummadda Soomaaliyeed loo sheego oo leeyahay godi baa isbedelaysa qabridaar baa dhagax buu ninka gaas ka shaqeeyay dabuub ama maxaar ama cid kala meelaha ugu dhow magaalo caruurtiisa dejisanaya waa qabridaar iyo dhagax buur iyo shilaab that's it marna dambana sidii awal jigjiga ay u adkayd in qolada laga ilaaliyo bay maanta shilaabo u adkaanaysa tulli guuleed iyo shilaaba uga muhiimsan maanta dawladda dhexe Ethiopia tulli guuleed oo dagaal ka socdaan iyo shilaaba uga muhiimsan dawladda dhexe because khayraadka ay maanta Ethiopia ka qabsatay shilaabo iyo agaarkeeda are more important for the national security of Ethiopia than tuuladeered tulli guuleed okay adaba waxaan rabaa inta gabagabada inaan dhowr su'aalood oo general oo aan ka wadiyo waxaa socda guddigii wada hadal ama dib heshiisiinta ayaa jira oo hadda meel walba maraya insha Allah waan wareysan doonaa walaalkeen ambassador Dirir laakiin waxaan maqlaynay in 4 region loo kala qaybinayo Ethiopia waxa proposal noocaas ah socda oo wala caada si xoogeysanay constitutionka in la bedeli doono arrimahaas maxaad ka ogtahay effectiga noo lahaan doontana maxay tahay iyadoo wala caada deegaankeena resourcekiisa for the first time la soo saaray wallahi sheekooyinka muddo walahayay runtii anigu hadda wax weyn ma arko Ahmed Yaasiin personally bad weydiinaysaa maaha Soomaaliland laakiin Faysal ahaan there is no regional system hadda there is no dawlad deegaan because central government giba xoogeysatay nidaamkii federaalku fakarka loo dhisay nidaamkan ma ahayn waxay ahayd in aan loo talin karayn ninka madaxweynaha ka dawlad deegaanka Soomaalida ama ka Oromo ama ka meel kale hadda waa loo taliyaa miyaa leedahay absolutely I mean why do we kid gidigooda waa loo taliyaa Abiy is an autocratic ruler hadduu maanta is yiraahdo bedel Shimalis Abdisa farbu ku bedelaya laakiin Shimalis is for him very important hadda siyaasadda Oromoga marka laga eego hadduu is yiraahdo ka canfarta bedel sidii buu ku bedelaya ka Soomaalida sidoo kale laakiin Soomaalida wuxuu ku tashaday in aanu isku taataaban because waa meel degan iyadoo meesha ugu degan kaliya taway marka amba hadan Abiy yahay de Mustafa ma taabteen people need to be adults about this why inay ka koraan sheekooyinkan kolba inta 4 qof aad saaba tagto durbaanka Mustafa ku tubaysa Mustafa has delivered
waxyaaba badan oo abiy rabay buu sameeyey marka haddaad siyaasi tahay maxaad uga takhalusaysaa waxa weeye gobolka keliya ta in maanta xabadi aanay ka dhacin waa dowlad deegaanka soomaalida and the credit ama oona laftaa keentay hala yidhaahdaa mustafa ka samay laakiin creditka waxa qaadanaya markaad saabe la joogo ninka meeshaa fadhiya marka runtii laakiin federaal kale oo meesha yaala dee ma jiro so waxaa leedahay constitution that's why odayadeen absolutely that's why odayadeen ay saaba ugu carraan markay mustafa ku kacaan ama ay cabdi maxamed ku kici jireen mucaaridku maanta saabay ka wada buuxaan ma aha mustafa mucaaridayna waxa weeye abiy baanu baryaynaa inuu naga kaxeeyo and that is ma aha dadkan inay khaldan yihiin waxay fahmeen siyaasadda Ethiopia taala inay ka go'do dee waxaba yidhiba dee ninkii wasiirka ka ahaa dowladda muxuu ahaa hurramiyo oo yidhi saabay ka go'daa showgaaga ka yidhi so marka aan su'aasha miiska saaran waxa weeye isbedel constitution ama dhacayo miyaad leedahay oo waxaa leedahay waxan waa show oo horta recommendationka way bixinayaan waa waxyaabaha ku jira si ragani markay saan u malaynayo waan la kulmay qaarkood in private sida ay hadhow arrinta u dhigi doonaan waxa weeye 3 or alternatives ayay u keenayaan in dowlad deegaanadu federaalku siduu hadda yahay u ahaado in regional base u ahaado oo natural boundaries la sameeyo iyo in nidaamkii hore something lagu celiyo marka executive-ka PP oo hadda xukuumad dalka ayaa kolba dhinacaysa iyagu sidaahdaan mar baa jirtay ay aad ugu janjeereen abiy kooxdiisu inay federaalka weeqjiyaan oo ka regionalka hadda dagaalada ka socda Fano dagaalada laga yaabo inay Tigray ka dhacaan iyo Ola oo iyadu aan ogolayn in nidaamkii centralist ilaahay amarkii dadka maanta cid caawinaysa federalist forces ma aha Soomaali ma aha cid kale waa Fano qoladii Oromo oo iyaga moogta xataa shimalista I'm sorry Ola da ayaa aad iyo aad ugu adag nidaamka federaalka inagu rool caynkaas waxaan yeelan karnaa in dowladda madaxweyne Mustafiyo ay gudaha yiraahdaan ma ogolin in la bedelo taasna hadii ay xisbiga PP dhinaca isku raacaan unba iyagu raacayaan that's their vote because xisbiga PP wuxuu u vote gareynayaa 12 region iyo inta la socota kolba dhinacay u vote gareeyaan marka waa jira proposal ku laakiin alternative ahaan baa loogu soo dari doonaa hadii ay dhameeyaan beri horena waa kuwii research-ga sameyn jiray maxay ahayn Africa something ay already yiraahdeen waa la isla egyahay qaar federaalka raba iyo qaar raba in federaalka laga takhaluso basically way isla egyihiin even jigjiga research waan ka sameynay waxaan rabaa su'aashii ugu dambeysay inaan ku weydiiyo dagaalo iyo heshiisyo iyo isbahaysiyo ayaa waxay ka socdaan Eritrea, Tigray iyo Amhara kuwaas effective noocaya ayay lahaanaysaa anigu oo iyadoon ognahay inay waxaad jiraan aan sii wato Addis Ababa iyo agaarkeeda kama dareemaysid haba yaraatee in uu dagaalba jiro effective lahaanayso economically long term iyo short term maxay tahay an fariinta aad shacabka Soomaaliyeed oo dhan u direysna maxay tahay wallahi xoogagaas hadii horta Fano 2 sano saahid maanta Axmed Yaasiino iyo maanta say tahay dee waa kala fogtahay division idil bay liqayaan mar kaliya tahubkii ka dhigayaan sidii Tigray berigii sameey jireen waxaan garanayn wali xoogga ku haray abiy soo laba kacleen doonaa wad ogtahay dalalkaasi hadda marayaan hub ururis iyo hub iibis bay ku jiraan laakiin haddii xoogaga aad sheegtay isqabsadaan oo Eritrea Samen people the northern Habasha people Eritrea Fano and Tigray danab aanu abiy arkin baa ku dhici kara oo runtii sidoo saga caabiya ay adag tahay Ola ma ogolaan doontaa mise sidii berigii hore markii adsaabe lagu soo dhawaa bay sideedii cagajiid noqon doontaa I cannot tell inkastoo la leeyahay hadda Fano iyo Ola wada hadalla u socdo meel qaarkood iska kaashadaan inkastoo og tahay Abronat oo dadka lidatu iyo Jawaar ay wadaan ay u yihiin cover iskaashiga Oromo iyo Amhara forum kalena la abuuray oo Tigray iyo Amharada ay ku wada hadlayaan
وانت بدانا الشاعن لكن ميل سره مريا waxyaabaha soo dhan hada isku geyso Eritrea ay daba taagan tahay ma saadaalin karno waxa ka iman kara laakiin midaan hubna waxa weeye cadaadis xoogan iyo dubo aan hadda jirin ay ku noqon karaan Abiy ma ka takhalusi karaan we don't know ma garan karno dawladaha Ethiopia tanaya maxay ka yeeli karaan we don't know midaan ku sheegay waxa weeye I think waa laga dayrinayaa siyaasadda Abiy oo ka wada geeska Afrika aniga dad aanu tagnay State Department-ka bishii August deeqadeedii runtii fakar fiican kama helaysid markaad la sheekaysato diblomaasiyiinta Mareykanka xaaladda Ethiopia oo aad iyo aad looga dayrinayo deganaansho la'aanta iyo dagaalada waaweyn ka socda marka in a way waxyaabaha loo rabo ama uu rabo Abiy hadda inuu dhinaca Soomaalida isku soo badiyo waxa weeye waa meesha kaliya ay degan marka you know it's very tough to predict laakiin Abiy wuxuu noqday runtii sidii la moodayay muu noqonin deegaanka deganaansho ku soo dabaalaya la firayay markuu powerka qaatay oo dad badan ay u qabeen inkastoo anigu dadka inta badan kaga duwan arrimahaas haddase Abiy wuxuu noqday spoiler wuxuu ku noqday waxa weeye ninkii qashinka sameynay sababtoo ah meel kasta dagaal buu ka furay Soomaaliya dagaal uu ka fur lahaana Ilaahay baa kala joojiyay last minute haddana Eritrea dagaalka uu ka shidayo waxaad moodaa in maalinta ka dambayso uu soo cadaanayo runtii marka haddaan wax isbedelan waa sax waan iska soo gabagabeynaa laakiin Faisal waxaan ku weydiiyey ninkan waa u jeedaa inuu wadankii oo dhan qurxiyo jigjiga waa u jeedaa in uu ka dhigay dhalo uu ka dhigay oo lagu faraxsan yahay wax badan uu burburiyay bal waxyaabaha fiican uu ninkan sameeyay bal wax ka sheeg iyo waxa kale oo noo sheegtaa and I'm going to put you on this spot gas kan hadda warshadan wax faa'iido ah oo ay noo deegaanka u lahaanayso fiican maxay tahay waana ku daayay no tan deegaan aan ku horeeyo hadii you know I'm looking from a technical marka arrimahan oo kale ila soo gudboonaadaan aniga Faisal ahaan صح سأكون شيء وحن كإيجيا from the technical point of view because I have done this kind of things environmental impact report iyo dhibaatooyin ka ku keen baashan waa land use taqaala laba arrimood bay ka kooban yihiin warshadahan dawladda deegaanka la inoogu sheegay mid waa dhaqaalaha midna waa land use dhaqaaluhu waan ka hadalnay waxaan nidhi haddii inta inoo qalanta ummadda la siiyo percentage-ka haddii shaqooyinka ka soo baxaya wax ku filan dadkeenu ama inta u qalmaan inkastoo saad sheegtay tababarkii loo baahnaa inuu ka gaabinayn laakiin waa lala qabsan karaa waana laga gaarsiin karaa muddo gaaban because most of them waa on the job training qofka 6 bilood 3 bilood baad ku tababari kartaa waa bir iyo isku xir iyo wax saasa taasna waa dhaqaalaha shaqooyinka ay abuuraysaana waxay keeni karaan iyo dhaqaalahaasi multipliers effective business yaryar oo ka hoos biqla meelaha shaqooyin ka socdaan islaan dukaan ka hoos furata oday maxay ka samaystaa waxaasoo dhan waa halkeeda laakiin waxaas babadhigaysaa the missing issues waxa ummadeenna ka maqan oo wixii aynu ka sheekeynaynaa maxaa waa adigoo lagu siiyey 2 xabo cinjeera laakiin sun yarna lagu dul saaray ma sunkaad markii hore iska qaadi mise cinjeeradii suntaad isku cuni dhaqaalihii waa cinjeeradaas laakiin waxaan laynagu daynayo dadkeena waa sunti marka miyanu liqnaa sunta marka anu waxaan leeyahay it's very good in dadkeena khayraadka ay leeyihiin horta waa ko in la develop gareeyo si equitable way ay xaq soor ku helayaan taas cidna ma diidayso xataa kambaniye kala dadka u develop gareeya iminka Soomaaliya doctor Turkiga oo dalka la jira ayaa u develop gareynaya waxa la isku qaban karaa xataa Soomaaliya dal madax banaana waxaynu ku helaynaa ma inagu filan yahay marka dadku yaani si khalad u fahmin dadkeenu waxay xaq u leeyihiin Axmed Yaasiin khayraadkan Ilaahay siiyay wixii xaq ay u lahaayeen adduunyada kalena ay ka hesho ma ka helayaan mise you are lesser than dadka waad ka yar tahayo wax dadka ka yar baa lagu siinaya horta dood wata dhaqaalaha tan kale waxa weeye inanka shilaaba jooga aabihiis inuu maanta warwara xaq buu leeyahay yaa oranaya odayga shilaaba jooga ilmahaaga ha u warwarin ilmihiisa uu dhali doonana ha u warwarin this is Mustafa's regions waa meeluhu ka yimid isagu
and I'm sure he feels it marka in la isku noqdo oo la yiraahdo give us some data iyo public package ka baxsan dhaqaalaha dadkan meesha degan deegaan ahaan laakiin haddana district ahaan waxay u leeyihiin waxaan ku sheegayaa waxaan sameeyay waxaan maamulo ka ah jaamacadda weyn ee talabaad lacagta dadka haysta endowment waxa la yiraahdo Harvard baa ugu badan USC taliga baa ku xigta USC master plan-keedan maamulay waxa dhalinyaradan guryaha looga dhisay xaafadda madowga waxay keeni karaan displacement inay caruurtii dadkii masaakiinta dibta yar ku kiraysanayay in ay kirada ku dalacdo wixii baan qiimeynay faa'iidadan dawladdu siinayso jaamacadan qiimaha leh ee dujaarka ah dibta ummadda ka soo gaaraysa markaan qiimeynay waxaan uga qaadnay 40 milyan oo dollar oo guryaha dawladda dib loogu cusboonaysiinayo qaar kuwa cusubna loogu dhisayo that's called it public benefit package environmental kana xaqiijiya صح marka dadkeena inaan u hadalno yaan la nagu qabsanin Axmed Yaasiin inaan u sheegno dadkeena yaana ceeb noqonin haddii ay dawladda Mustafa dibsanayso hana tiraahdo natusa sidee wax loogu sameeyaa hala tageen meesha aad sheegaysa tiri waxay fadhiyaan miiska proposals hala tageen 1 2 3 kow haddaad naga diidaan laba haddaad naga diidaan bar saddex naga yeela there's nothing wrong hadday la tageen hana tusaan waxaanaan la tagnay ha yiraahdaan sidana cade ha yiraahdaan laakiin inaba nuguma jirto inaanu sabotaaj garayno I think maqaalkan saaka qoray wuxuu sheegay in 80 sano Axmed Yaasiin in dadkeenu ku dareynayeen ninkan maanta ay gacanta u gashayna anigu kuwa dawladda ku jiro way aamini karaan laakiin aanu ma aaminsani inuu danta dadkeena ka shaqeynay let him show us we are adults we are educated we are fine people maskax baynu leenahay dad waxaanu leenahay iimaan leh waxa la leeyahay dadkiina u faa'iideynaysa data baa jira soo Axmed Yaasiin number la isku geegeeyo iyo wax la isku geegeeyo iyo wax la qodobeeyo sharci ku fadhiyaa jira marka layna tuso dawaynu sacabtumid kuwan aad ka sheegtay corridorka iyo waxaas runtii aniga magaaladeeda Jigjiga that's my hometown in a way I welcome it waan arkay jidadka laga dhisay waxaad ogtahay maalintuu Mustafa yimid waxyaabahan ku booriyay waxa kamid Axmed Yaasiin in library laga dhiso Jigjiga markaan korayay you're talking about long time ago laba bookstore iyo one public library bay lahayd maanta male waxay ugu horeysay talooyinka ugu horeysay bixiyay waxay ahayd library parks waa waxyaaba ummaddu ku najaxdo caruurtuna ku najaxdo dhalinyaradu ku najaxdo corridor development in maanta qofka Jigjiga habeenkii intay gacmaha isqabsadaan ay jidka wogarayn karaan I welcome 100% kaliya waxaan uga digayaa kow dadka aan displacement lagu sameyn oo yaani waayin laba boosaskan public properties kala siinayo dad yaw gaara taasna waa khalad oo Soomaaliya dhan bay ka dhacaysaa arliga Soomaaliya oo dhan bay ka dhacaysaa it is wrong iyo runtii maintenance marka la dhiso public projects noocan oo kala oo corridor la dhiso Axmed Yaasiin dibta ugu weyn waxay tahay to maintain 10 sano 5 sano 6 sano dhirtan sidii loo ilaalin lahaa marka sawirada ilaa imika aan arkay I was very happy inshallah marun baan tagi doonaa hadii Ilaahay ka dhigo nabaduna sii waarto laakiin qodobadaas inaba in aan kala lex jeclaabo shaqadayda ma ما waad ku maadsan tahay anigu sometimes waxaan kala garan waayaa yaa Jigjiga mayor ka ah oo jidadkan iyo waxyaabahan 40 saac la kormeerayo waan kala garan lahay mayorka waxaad moodaa no I think this is again waxaan ka imid Garowe waxa hardan ka jira mayorka because horta land use iyo jidadka magaalada markay noqoto waa shaqada mayorka iyo dawladda deegaanka mayoradiina lama doorto marka madaxweynuhu gacan bay ku leeyihiin laakiin dood waxay ka taagan tahay hawlaha guud baa waxa sameeya mise mayorka xafiisyadiisa waxyaabahan kule autocratic waxaas waa la higsan doonaa laakiin waxa ka jirta kalidii talis ilaa meesha hoose meesha sare laakiin waxa weeye I think arrimahan designkii waxoo dhan asaaba laga soo sameeyaa aniga ila tahay
ما يدعي صار وحن كل مقالة جيجان وحن صدح مير بيلا هاي مدحوين مصطفى مير كي يا شاء الله يا كمير يعني هذا because or بحين كستو برايم مينستر كي وترتا every week مركي هذا قرشة السعودي حفيز كبرايم مينستر كهذا تصود السنة يسقى مركا it's sad وحوي مدحد أدونك وحيلي وحلي هذا pet project وحيابي يروي وطن marwati madaxweyne prime ministerka xaaskiisu wadatay furun in dadka loo sameeyo maalmihii hore firshad furun sheekadu way ka baxday abiy sidii bilar rafle uu aad u jeclaa inuu magaalooyinka qurxiyo buu abiy waxaad moodaa arrintan corridorka waa arrimo ku cusub asaabo kale mashaakille ku yeelatay innaga impactiga aynaguma yeelan asaabo masaajidaa la dumiyey taariikh piyaasa حتى ميلو waxaa la sheegay ay ku kulmeen Cabdilaahi Ciise iyo Katama Yifru markii Katama Yifru in la dumiyay laakiin inaga ilaa imika dhibaato badan inaguma keenin sawiradan ka arkayna oo qurux badan tahay aniga una maahay Soomaalidu dhan baan soo dhaweysay arrintaas marka hadduu mustaqbalka dambeeyo well and good waayo hadaba hal arrin oo controversial ayaan kaga baxayaa ama ku dhaamaro soo gabagabeynay Said Maxamed Cabdulla Xasan iyo taaladiisii haddii aad fiirisid mataqaanaa mililig taaladiisa waxay ku dhex taallaa dhexbartanka Addis Ababa ayay ku taallaa markii la yidhaahday hal qaado Oromo rabta inay qaado Amxaara waxay uga dhiidisay maxaa kaa galay waxaa lagu doodaa dagaalkii Cadwa iyo arrimahaas inuu ku shaqo lahaa oo meeshaas ay taariikhi tahay oo gumaysiga Yurubiyaanka ula dagaalamay uuna ka guulaystay haddii la leeyahay Ethiopia waxa weeye waa la wada leeyahay soo taalada sayidka in Addis Ababa dhexbartankeeda la dhiga maynan ahayn haddii aan deegaanka dhexbartankiisa aan la dhigi karin oo la dhihin cadow ninka kaliyaata ee la dagaalamay Yurubiyankii muddo 30 sano ka badan oo guulo waaweyn ka gaaray diyaaradaha ugu horeeyana lagu soo ataagareeyay wuxuu ahaa nin mataqaanaa deegaanka Soomaalida ka soo jeeda oo Soomaaliya taaladiisa hadeerto haddii mataqaanaa African Unionka ay ku taalla meesha Afrika waxay u baahan tahay ninkaas qoortay inuu xusto taalada sayidkana Addis Ababa laga dhex sameeyo haddiiba jigjiga loo diiday in ay meel prominent ay taalo horta intaan ka warqabo jigjiga looma diidin laakiin waxay gaadheen siday noo sheegeen meel ka fiican oo fountains leh oo horta taalada sayidku dee shalay baa la dhisay tan minilik meel it has a little all longer reason anigu horta waan kaaga soo horjeedaa inaad saabo la geeyo waad naga xabasheynaysaa baan malaynaya taariikhdii sayidka waan afrikaaneenaya ku socod maya inuu jigjiga inoo yaalan anuu ka jeclahay laakiin siday sheegeen madaxda dowlad deegaankiyo haddii ay run ka tahay in meel fountain leh oo habeenkii park loo tamasho tago oo aniga waxay ilahay personal faysal ahaan meel ciriiriya markaan hotelka jigjiga international hotel ku jiray dhowr jeer baan sinima isku sawirtaa laakiin samxaddii meesha ka jirtay awgeed iyo sida u qaab u xumayd horta maan jeclaysan haddii meel weyn oo laysku soo sawiri karo oo dadku access is the most important taalooyinka mid waa taariikhda mid waa quruxda midna waa access in la mari karo oo loo tegi karo maalintii ay warku soo baxay anu ay welcome read laakiin maalintii bay noogu dambeysay waxaan arkay rendering sawiro laleeyahay saas u ekaanaysaa meel beautiful waa dhisaya laakiin museum oo kala laga dhigaya hadhow markay meeshu korto I totally agree with you Menelik iyo sayidka haddii horta taariikh buugan qorayo taariikhdeena waxa aasay raggii yimid insha Allah mar baan ka wada sheekaysan doonaa taariikhdeenii waa la aasay sayidku wuxuu la facahaa mahdigii Suudaan Samora Tourihii Guinea Ahmed Danfoodii West Africa Said Cabdillah Xasan saad sheegtay waninkii ugu horeeyay diyaarado European-ku ay kula dagaalamaan wanin kaliya mar kaliya simultaneously saddex guumaysi la dagaalamayay rasmakonin 10,000 oo sterling bay Ingiriisku siiyeen inuu sayidka dabin ugu dhigo xagan jigjiga inuu maro jigjiga waxa loo aasaasay Cabdalla Daahan ninkii la oranayay la keenay carabka Yamani ah isagoo 200 askar wata inuu sayidka la dagaalamo Menelik iyo askartiisu dhowr bari bay dagaalameen I think waa saacado waxaan arwada lagu sheegayo
saacaday ahayd taariikhdan la qorayo marka aad literatureka dhex gasho waxaad ogaanaysaa in taariikh la dhisay ay tahay waxaana dhisay Jesuitskii baadariyiintii timid dowladda gobolkan geeska Afrika ayaa waxa jira buug la qoray markay masiixigu jiray 50 sano 60 sano oo markii la ogaaday Ethiopia inay tahay dal Kiristana beriga wixii ka bilaabmay ilaa beriga dhaweyto taariikhda geeska Afrika oo dhan waxa loo xaglinayay xagga Abyssinia xataa kuweeniba iyada la siiyay markii ay sayidka timid xataa kuwii progressiveska ahaa ee horsocodka ahaa maad mulax bay u bixiyeen uma bixin Sayid Cabdullah Xasan oo jihaadka waday oo dagaalkii ugu dheeraa liberation movement waday marka runtii ha inaga geyn adsaaba halkan aynu taariikhdiisa ku buunbuunin doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh calaykum assalaam waa maadsantaa Faisal boqolkiiba boqol short notice-ka jazakumullah khair okay